salaadiinta cuqaasha waxgaradka iyo haweenka beelaha lahaybsooc ee gobolka Togdheer ayaa taageero u muujiyay xukuumadda iyo xisbiga talada haya kulmiye Suldaan Nadiif Said Jibriil, Suldaan Saxardiid Faarax Budeeye, Suldaan Maxamed Saleebaan Xaashi iyo haween tiro badan oo halkaasi ka hadlaya hadaladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan weeyaan xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha way artaan aad iyo dawladdu way artaan aad beesha Togdheer Muuse Madhibaan inay u diyaar yihiin doorashadooda oo ay doorayaan hadii lahayd waad arataan salaadiinta dhinacayga taadan ee halka istugu yimid Muuse Madhibaan ee xusbiga taageersanay taageeray ee markii hore soo saaray waxaan leeyahay dadkii jira beeshii jirta ee waarta ee dabatu waarta ee wanaagtu waarta ilaahay ka tabido haddii uu leeyahay beelaha Madhibaan iyo Muuse ee maanta meesha isugu yimid waxaan u soo baxnay taageerada xusbiga kulmiye inaanu ka qayb galno saamigeegana helo waa mid diidantii sida salaadiintu sheegeen xusbiga talada ayaan taageersanay awalna taageeri jirnay balse kama nahayn in waxaan u soo roleynay halka waxaan kala ku fadhinaa beelihii Muuse iyo Madhibaan ee gobolka Togdheer oo waligeed iyo allaheed tan iyo maalintii xusbiga kulmiye la taagay cod iyo hiil iyo hoo baanu garab taagnay wax 13 sanadood ayaanu xusbiga u taagnay markii marna dawli baanu ahayn marna xusbi baanu ahayn waxaan hambalyo u dirayaa horta madaxweynaha iyo intii ka hooseysa salaanta ka bacdi waxa weeyaan anagu waxaan beesha Gabooye Muuse iyo Madhibaan bal gobolkana waanu dhalanay haddii aanu dhalanayna waxa weeyaan wax xuquuqa aanu helaa haba yaraatee ma jirto dadkana inaan ka soconahay baad moodaa ma garatay marka waxa weeye waxaanu anagu xukuumadda aanu leenahay Muuse biixi cabdi uu horeeyo hoos noo eeg waa Maxamed Ibrahim Xasan TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.